maamulka gobolka Liibaan ayaa kulan yeeshay mulkiilayaasha kaalmaha shidaalka ee ka howlgala gudaha gobolka Liibaan. Kulankani oo ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii loo dhaqangelin lahaa jaangoynta shidaalka ee dhawaan xukuumadda soo saartay ka hortagga shidaalka sharci darrada uga baxa dalka dibaddiisa iyo in kaabis lagu sameeyo baabuurta dadweynaha. Waxaana kulankani ka soo qayb galay maamulka gobolka Liibaan oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Liibaan mudane Cabdullaahi Yuusuf iyo dhammaan mulkiilayaasha 15 kaalmood ee ka howlgala gobolka Liibaan. Kulanka oo waqti dheer qaatay kadib ayaa waxaa faahfaahin dheer naga siiyay ujeedka guud ee kulanka gudoomiyaha gobolka Liibaan mudane Cabdullaahi Yuusuf iyo madaxa xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga gobolka Liibaan mudane Cali Faarax. Saaka waxaan la kulannay dhammaan 15 kaalmood ee ku yaala gobolka Liibaan degmooyinkiisa kala duwan iyadoo aan kala hadalnay 3 qodob oo kala ah. Kow, qaabkii loo hirgelin lahaa ama loo dhaqangelin lahaa jaangoyntii shidaalka ee kaalmaha. 2, in laga hortago shidaalka la dhoofiyo ee waddanka dibaddiisa uga baxa. 3, in bulshada looga faa'iideeyo gawaarida dadweynaha kabista shidaalka. 3 qodob baan ka wada hadalnay dhammaan mulkiilayaashii kaalmaha gobolka Liibaan oo tiradooda dhan tahay 15 kaalmood. Ugu dambeynna si wanaagsan bay noogu soo dhamaatay. maanta waxay noo qabsoomay shirki aan la yeelanay dhammaan kaalmaha ku yaala gobolka Liibaan. Guud ahaan gobolka waxaa ku yaala 15 kaalmood. Dhammaan 15 kaalmood waxay ka soo qayb galeen shirkan maanta oo qabanay ka gobol ahaan. Arrimaha kala hadlayna waxaa ka mid ah dhaqangelinta jaangoynta shidaalka cusba iyo in shidaalka la dhoofinin iyo mirqaashada qodobo kala gedsan kala hadlaynay. Maanta waxaan isla garanay kaalmaha shidaalka kaalinta shidaalka ku dhaqmo weysay jaangoynta cusub inta laaba laga qaadi doono ayna awaamirtu inay qaateen cabasho yar soo gudbin jirta dhanka wadalaanta iyo waxyaabo soo gudbin jirta taa kale ka dowladda ayaa qaadan laakiin si guud maanta waxaan isla qaadanay in shacabka loogu faa'iideeyo shidaalka qiimaha shidaalka dowladda soo jaangoysay qiimaha la dhaqangeliyay isla qaadanay aad u maasantay. Intaasi kadib maamulka gobolka ayaa soo kormeeray habsami socodka mashaariica horumarineed ka socda xarunta gobolka Liibaan ee magaalada Fiirto kuwaas oo ay fulinayaan xafiisyada heer deegaan.